akhyaarta Bulqaas Media ku xiran iminkana ku soo dhawaada warar ku saabsan tahriibayaal ku geeriyooday xeebaha waddanka Liibiya iyo dalka Panama. ugu yaraan 73 qof oo tahriibayaal ah ayaa la la'yahay waxaana loo malaynayaa inay dhinteen kadib markii doonidii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha waddanka Liibiya sida ay sheegtay hay'adda socdaalka ugu qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano IOM. 7 qof oo kaliya ayaa ka badbaaday doonidan oo degtay maalintii shalay, laakiin wararku waxa ay sheegayaan in ay dadka badbaaday xaaladoodu ay aad u xun tahay. ilaa iyo hadda 11 qof oo meyd ah ayay hay'adda bisha cas ee Liibiya iyo boolisku ay soo saareen. doonta ayaa waxa ay ku sii jeeday Yurub iyadoo hay'adda IOM ay ugu yeertay marinka tahriibka ee ugu dhimashada badan adduunka. in ka badan 130 qof ayaa horay u dhintay sanadkan iyaga oo socdaal khatar ah ku maraya badda Mediterranean-ka. hay'adda IOM waxay intaas ku dartay in ka badan 1450 dhimasho ah ay ka diiwaan gelisay mashruuceeda muhaajiriinta maqan sanadkii hore. xaaladani waa mid aan loo dulqaadan karin ayay tiri Safa Masehli oo ah afhayeenka kooxda. Mrs. Masehli ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay dadaal dheeri ah si loo kordhiyo awoodda goobidda iyo samata bixinta, in la sameeyo habab cad oo badbaado leh iyo sidoo kale wadooyin ammaan ah oo joogto ah oo loo maro socdaalka si loo yareeyo safarada khatarta ah. dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya waddanka Panama ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen 23 kalena ay ku dhaawacmeen waddankaasi Panama kadib markii bas ay saarnaayeen in ka badan 60 muhaajiriin ah oo ka soo dhacay meel buur ah oo ku dhacay meel tog ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan maamulka socdaalka ee waddankaasi. shilkan naxdinta leh ayaa dhacay markii baska ay la socdeen dadkan tahriibayaasha uu ka soo dhacay dhagax weyn oo ku yaala gobolka lagu magacaabo Chiriquí ee dalka Panama saacadu markay ahayd 4:00 subaxnimo saaka ee xilliga waddankaasi. baskan yar oo siday in ka badan 60 muhaajiriin ah ayaa waxa uu ka soo ambabaxay gobolka Darien ee bariga Panama waxana uu ku socday kaam ku yaala deegaanka Los Planes de Golosa oo u dhow xuduudka Costa Rica. dhimashadu waxa ay mar hore ay maraysaa 33 qof halka 23 kalena ay dhaawacmeen, kuwaasi oo helay daryeel caafimaad sida ay xaqiijisay agaasimaha socdaalka qaranka Panama haweeneyda lagu magacaabo Samira Gozian. sida ay sheegayaan wararkii ugu horeeyay basku waxa uu isku dayayay in uu ka soo leexiyo wadada weyn ee Chiriquí Bocas del Toro oo u dhow kaamkaasi, balse intii uu soo socday waxa uu ka soo dhacay buur weyn waxana uu ku dhacay tog. darawalka baska ayaa waxa la sheegay in uu si lama filaana u seegay amaba u dhaafay albaabka laga soo galo kaamkaasi, waxana uu rabay in uu gaariga uu soo kala celiyo si uu ugu soo laabto kaamka. markaasi ayaa waxa uu ka soo dhacay meel buur ah waxana uu ku dhacay tog, ayay tiri Samira Gozian oo ah agaasimaha adeega socdaalka ee waddankaasi. waad ku mahadsantihiin dhageysiga wararkaasi ku saabsan tahriibayaasha geeriyooday oo aad kala socoteen Bulqaas Media. haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media, fadlan hanaga ilaawin like iyo follow inaad na soo tiraahdo si aad wararkii ugu dambeeyay ee caalamka aad halkan maalin walba uga dheehato. haddii si aad tahay macmiil soo noqday, hanaga ilaawin in aad share garayso isla markaana wixii aaraa iyo comment ah aad noo reebto. waad mahadsantihiin.